Itoobiya waxay ku guuldareysatay qorshe weyn oo ay ka damacsaneyd dhanka Soomaaliya kadib markii xukuumadda Abiy Ahmed ay sameysay tallaabo xooggan oo la xiriira qaabka ugu fudud oo ay ku dooneyso inay ku sameysato qariirad ay ku muujinayso in dhulka Soomaaliya qayb ka mid ah Itoobiya gudaha ay soo geli karto. ila kala duwan waxay tilmaameen in dhanka dayax gacmeedka Soomaaliya Turkiga uu dhawaan ka tuuri doono in uu kashifi doono waxyaabo fara badan oo la xiriira arrimaha Itoobiya ay ka damacsan tahay dhanka iyo xuduudaha Soomaaliya iyo gudaha dalkaba iyadoona arrimahaas marka laga soo tago diyaarado dooranayso duuliye la'aan Turkigana uu leeyahay ay qayb weyn ka qaateen inay sahan ku sameeyaan goobaha Itoobiyaanka ay doonayaan in ay sheegtaan dhanka Soomaaliya si ay dhinacyada Itoobiya ay u doonayso siyaasad ahaan inay soo dhaweysato inay ugu adeegsato arrintaasi. ila kala duwan ayaa warbaahinta Xuraasi waxay u sheegeen in xukuumadda Abiy Ahmed ay fashil siyaasadeed kala kulantay damaceeda ku aadan in dhul balaarsi ay ka sameyso qayb ka mid ah gudaha Soomaaliya taasoo keentay in saraakiisha mas'uuliyiinta iyo xukuumadda Itoobiyaba ay bilaabaan qaabka ugu fudud ay ugu falceli karaan arrimaha hadda jira sida ay sheegeen ilahani. sargaal saro ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay sare u qaaday tababarka ciidamada kala duwan sida kuwa cirka, dhulka, badda iyo sidoo kale ciidamada gaarka ah ee Soomaaliya loo tababarayo taasoo keentay in wadamo fara badan durba ay muujiyaan walaacooda ku aadan xaaladaha dhanka amniga. tijaabadii adkeed ee sugidda amniga dalka oo ay ciidanka Soomaalida oo ka madax banaan kuwa Afrikaanka ee 20 sano Soomaaliya jooga ayaa waxay keentay in wadamo fara badan ay walaac ka muujiyaan arrimahaasi. diyaaradihii lagu aaminay ciidanka cirka Soomaaliya ee Turkiga uu leeyahay ayaa iyana waxay sii udubtay xiriir wanaagsan oo ka dhaxeeya Muqdisho iyo Ankara kaasoo ku dhisan iskaashiga dhanka amniga. taangiyo casri ah iyo gaadiid kale ayay Turkiga keeneen gudaha Soomaaliya taas oo mar kale moraal dilaac ku riday wadamada deriska la Soomaaliya sida Itoobiya iyo Kenya oo in muddo ka walaacsana xaaladahaasi iyo isbedelka degdega ee halka ka soo ifbaxaya. ila kala duwan ayaa warbaahinta Xuraasi waxay u sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay wado dhaqdhaqaaqyo guud oo ay ku saldhigayso qorshaha guud ee la xiriira qaabka ugu fudud ee loo gaari karo howlgalladaasi iyadoona saraakiisha mas'uuliyiinta iyo xubnaha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya durba ay bilaabeen inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo arrintaasi la xiriira. Itoobiya ayaa ah meesha ugu badan ee culayska siyaasadeed oo ka soo korayo dhanka Soomaaliya maadaama in muddaha ay dhisaysay ciidamo badda ah oo ay ku doonaysay in ay qayb ka mid ah Soomaaliya iyadoona maamul goboleedyada hoostaga dowladda federaalka heshiis ay la geliso si ay halkaasi dekedaha u dhigato. dhowr jeer ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu afkiisa ka bixin waayay in ay ka go'an tahay Soomaaliya waa inay ka go'an tahay Itoobiya sidii marin badeed ay u heli lahayd saldhig iyo deked weyn iyagoo ay maamulayaan taasoo keentay in shaki weyn uu soo kala dhex galo arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Itoobiya sida ay ku warameen ila kala duwan. saraakiil mas'uuliyiin iyo xubno kala duwan ayaa dhankooda waxay carabka ku adkeeyeen inay socdaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka ugu fudud ee Soomaaliya xilligan ugu faa'iideysanayso fursadaha dhanka militariga ee u banaan taasoo keentay in saraakiisha mas'uuliyiinta iyo xubnaha dowladda federaalka diiradda ay saaraan qaabkaasi iyo in ay ogaadaan xog walba oo ku aadan in ay dowladda Soomaaliya xilli ahaan ay heli karto fursado waaweyn oo ay albaabada uga garaaci karto dhinacyada ay doonayso in xilligan Soomaaliya ay maalgelin karaan. Turkiga, Sacuudiga, Masar, Pakistan iyo dalal kale ayaa safka hore ka soo galay in la garab istaago ciidanka cirka Soomaaliya iyo kuwa badda oo ah xuduudda kaliya ee hadda u dhiman dowladda federaalka Soomaaliya. ujeedku waa in la adkeeyo nabadgelyada guud ee Soomaaliya taasoo keenaysa in saraakiisha mas'uuliyiinta iyo xubnaha kala duwan durba ay bilaabaan inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrimahaas iyadoona mas'uuliyiintan ay intooda badan ay diiradda saareen in ay abaabulaan dhaqdhaqaaqyada iyo isku dayadaasi la xiriira in la xoojiyo dhismaha ciidan awood buuxda leh oo Soomaaliya ay leedahay.
wararkii ugu dambeeyay ee soo baxaya waxay tilmaamayaan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud khudbad uu ka jeediyay shirkii ugu dambeeyay ee Midowga Afrika inuu kaga hadlay arrimaha la xiriira dhanka amniga iyo mustaqbalka ciidanka Soomaaliya ee Soomaalidu amniga guud ama Soomaaliya guud amniga ay la wareegi karaan taas oo mar kale muraadilaac ku keentay madaxdii ciidamada u soo diray Soomaaliya ee 20 sano macaashka faraha badan ka sameeyay balse aanay taaga ka mid ah horumar dhanka Soomaaliya qaadin sida ay sheegeen ila ku dhow arrimahan iyadoona maalmihii u dambeeyay dowladda Soomaaliya ay waday tababarka dhalinyarada ciidamada ku biiraya kuwaas oo tijaab ahaan maray sanadihii u dambeeyay gaar ahaan labadii sano la soo dhaafay waa 2020 iyo 2024 in ciidamadan si iskooda iyagoo ka madax banaan askarta Afrikaanka ay bilaabaan in ay howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ay ka bilaabaan deegaano kala duwan taas oo keentay in ciidamada Afrikaanka markan culays ku soo kordho kadibna waxa xigay go'aanka golaha ammaanka qaramada midoobay maadaama taageerada ugu badan ee dhanka dhaqaalaha golahaas u bixiyo iyadoona ugu dambeyn la sheegay in ciidankaas la dhimayo dhaqaalahoodana uu hoos u dhacay waxa ay taasi keentay in wadamo fara badan oo lacago badan ka heli jiray arrimaha ciidamada ka jooga Soomaaliya xilligan fursadaas ay walaac ku beertay maadaama ciidanka Soomaaliya fursadaha ay helayaan ay yihiin kuwa ugu badan ee diiradda lagu saarayo arrimaha dhanka siyaasadda wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tala xigta warbaahinta Xuraansi ku daawo waad ku maasan tahay daawashada ila socodka wararka iyaga